ma ogtahay mar walba aad habeenkii cirka kor u fiirisid inaad dib u fiirinayso waqti la soo dhaafay? Sooleeb ma aha, wala isugu ag fahansiiyey. Marka hore si aad wax u aragtid waxaa u baahan tahay iftiin. Iftiinkuna waxa uu ka samaysan yahay particles ama waves loo yaqaano photons, kuwaas oo loo aqoonsan yahay inay yihiin waxa ugu xawaaraha badan koonkan aan ku noolnahay. Laakiin xawaarihiis xad ayuu leeyahay. Iftiinku wuxuu safri karaa ku dhawaad 300 milimitir ilbiriqsigiiba, ama haddaa si kale kugu dhigo wuxuu dhulka oo dhan ku wareegi karaa 7 mar iyo haaf halkii ilbiriqsi. Xawaarahaas waa mid aad u badan sax, laakiin koonka weynaantiisa ayaa waxaan ku dareemi karnaa in xawaarahaas laftiisa u baahan yahay waqti. Ka soo qaad qoraxda oo ah xiddigta noogu dhow waxay noo jirtaa 150 milyan kiiloomitir. Iftiinkooduna wuxuu qaataa si uu soo gaaro 8 daqiiqo. Midaas oo ka dhigan mar walba aan qoraxda aragno waxaan arkaynaa sidii ay ahayd 8 daqiiqo ka hor. Xitaa maanta haddii ay baaba'do ma arki karno ilaa daqiiqadahaas kadib. Bal ka waran galaksiyada iyo ciddiyaha kale ee aadka nooga fog. Masaafada ay noo jiraan siday u badan tahay darteed iftiinkoodu wuxuu u baahan yahay kumanaan iyo malaayiin sano si uu indhaheen ugu soo dhaco. Midaas oo ka dhigan in isbedel walba oo ku dhaco aan arki karin ilaa kumanaankaas iyo malaayiintaas sano laga gaaro. Marka mar walba aan cirka fiirino waxaan gadaal u fiirinaa waqtiga iyo taariikhda koonka. Waxaan rajeynayaa inaan fahnay haddii ay jiraan sheekooyin ama dhacdooyin aan la yaabtay ila soo wadaag si aan u aragno waxa cilmi ka dhaho.